bahaysiga xiriirka u jiray qatar Soomaaliya waxay la leeyihiin xiriir dhaqaale oo aad u xoogan. markii aad go'aankan qaadanayseen ma eegteen mise kaliya waxaad ku aragteen indho siyaasadeed? markasta markaad qaadanayso go'aan siyaasadda arrimaha dibadda waa inaad dhinac walba ka fiiriso. madaxweynahana markuu qaadanayo go'aankan iyo ra'iisul wasaaraha go'aankan ma ahayn miday ku degdegeen, wuxuu ahaa go'aan ay ka fiirsadeen 3 maalmood. waxaan u malaynaa maalintii afraad inay soo saareen war-saxaafadeedkii soo baxay. taasna waxay ahayd in la tashi dheer iyo maaragtay inay fiirinayeen dhinac walba weji walba inay ka eegeen. xataa maaragtay lala tashaday sidaan kuu sheegay khubaro siyaasiyiin fara badan, xildhibaano iyo maamul goboleedyada qaar ka midaba in lala tashaday yaan rajaynayaa. marka waa run waa naga dhexeeyaan imaaraadka carabta, dowladda sacuudiga, soomaali badanaa ku nool, ganacsato badanaa ku jirta, xiriiro soo jireenaan leenahay, isweydaarsi ganacsi aan leenahay. laakiin waa inaad fahamto go'aankan anaga qaadanay ma aha go'aan dowlad looga soo horjeedo ama dowlad kale lagu duraayo. annaga ma aha in la yiraahdo Soomaaliya go'aankan gaara ama waa naga soo horjeedaan. taas qof dhihi kara maanta Soomaaliya ma jiro. Soomaaliya go'aanka gaartay waa go'aan dan u ah ummadda iyo sharafta iyo dowladda Soomaaliyeed. dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxay qaateen go'aan ka duwan kan aad qaadateen. haddiiba dowlad goboleedyadii xubnaha ahaa ay go'aan kala qaateen, go'aankan dhexdhexaadnimada ah yaad ku matashaan? waxaan ku xasuusin lahaa arrintan waxay dhacday bishii 6aad 5teedii, maantana waxaan joognaa bishii 9aad 20keedii. marka mowqifka ay qaateen dowlad goboleedyada ma ahayn mowqif loogu talagalay inuu saameyn ku yeesho go'aankii dowladda dhexe. sababta dowladda dhexe go'aanka waxay soo saartay dhowr maalmood kadib markii arrinta dhacday oo bishii 6aad ahay, bishii 7aad, bishii 8aad, bishii 9aad anagoo ku jira maaragtay 20keeda in la yiraahdo hadda dowlad goboleedyada way ka soo horjeesteen mowqifka dowladda dhexe ay qaadatay. ma u malaynaa inuu wax saameyn haba yaraatay oo ku yeelanayo. waxaa kaloo la xasuustaa oo dastuurkan ku qoran tahay qodobka 54 in dowladda dhexe oo keli ah ay u xil saaran tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka. marka dowladaha maamul goboleedyada maadaama ay ka mid yihiin dowladda federaalka, aan nahay dowlado walaalo aan nahay, maamullo aan walaalo nahay, waa soo dhaweynaynaa maaragtay wixii ay qabaan, laakiin waa inay u soo mariyaan sida habboon oo kala hadlaan madaxda dowladda. ma aha in ay kala hadlaan saxaafadda ay yiraahdaan maaragtay waa ka soo horjeednaa go'aankii dowladda. dowlad goboleedyadu waxay ka cabanayaan in aan laga talagelin go'aankan. madaxweynaha ayaa taladaas iskale. madaxweynaha markuu go'aanka gaarayna sidaan kuu sheegay dad badan ayuu xeeriyey. waxaan rajaynayaa inay ka mid yihiin dadka uu la tashaday maamul goboleedyada. marka haddii ay wax ka qabaan go'aankana waxay ahayd in markaas bishii 6aad laga wada hadlo oo la sameeyo. waxaana xasuusin midan in markaas kadib shir kale la isugu yimid oo maaragtay madasha maamulada ay yimaadeen oon haba yaraatay wax ka soo baxay uusan jirin. laakiin hadda maaragtay aan aragnay dad leh arrintaas waa lagu degdegay. ma u malayna aniga in lagu degdegay go'aanka ay dowladda dhexe gaartay. wuxuu ahaa go'aan sax ah, waana go'aanka ay taageereen shacabka Soomaaliyeed adduunka meel kasta ay joogaan. ma jirtaa siyaasad cad oo wasaaradda arrimaha dibadda ay leedahay oo marka xaaladahan oo kale ay timaado aad ugu tala gasheen inaad maamul goboleedyada kula macaamishaan? sidaad og tahayba maamul goboleedyada waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalka. dastuurka hadda lagu shaqeyna waa dastuur ku meel gaara oo qabyo qoraal ah. waxaana rajaynaynaa in dastuurkaas laga dhigo inta hadda dowladdan ay jirto madaxweyne farmaajo dastuur rasmi ah. maamul goboleedyadana waxay ka mid tahay la tashiga lala sameyn doono iyo gobolladoo dhan la tegi doono si loogu heshiiyo siyaasadda rasmiga ah ee waddanka, kheyraadka, qaybsiga kheyraadka, waxyaalahaas oo dhan. siyaasadda arrimaha dibaddana way ku qeexan tahay dowladda dhexe inay tahay cidda garwadeenka ka ah. dastuurka way ku qeexan tahay, maamul goboleedyadana way uga dambeeyaan. sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda ma jirto wasaarad dhigeeda ah oo ka samaysan maamul goboleedyada. marka wasaaradda arrimaha dibadda ee federaalka oo keli ah ayaa u xil saaran
garwadeenka siyaasadda arrimaha dibadda maamul goboleedyadana waa dowlado member states wayna nala shaqeyn doonaan dastuurka marka la dhamaystirana waxaan rajeynaynaa siduu haddaba yahay adduunkana dowladda federaal waa jiraan dowladaha federaalka ayaa markastana hogaamiya siyaasadda arrimaha dibadda